oo qofku uu isku dayo in uu iska asturo indhaha bini aadamka ilaahayna uu ku caasiyo meel uu malaynayo inaan cidu arkaynin ayadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala meel looga dhuuman kara isa jirin. waxaan ku soo gaabinayaa qofka mu'minkaahu dunuubtiisu waa la culusta aad ayay ula weyn tahay. wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud mu'minku wuxuu u arkaa dunuubtiisa sidii asagoo fadhiya buur weyn oo salka ka qarqooran macnaha soo go'i rabta asaguna hoosteeda uu fadhiyo. munaafiquna dunuubtiisa wuxuu u arkaa ama qofka faajirka ah tixsi sankiisa hormaray oo inta gacanta saa ku yidhi iska bifina. waa calaamad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku kala soocayo dadka ahlu taaca fi sirri waalcalaaniya ilaahay u ateeca si muuqata iyo si qarsoon labadaba kana xishooda ilaahay inuu ku arko meel uusan raadi ka ahayn iyo dadka iska gada bini aadamka laakiin markuu keligii noqdo aan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu fiidhinayo halmaamo. wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiid ibnu maaja iyo kayruhu ay soo saareen bisanadin saxiix la aclamanna aqwaaman min ummatii ya'tuuna yowma alqiyaamati biacmaalin kajibaali tihaama oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam waxaan ogaan doonaa aqwaam ka mida ummaddayda oo maalinta qiyaame imaan doona ayagoo wata acmaal aad u waaweyn oo aad moodid buuraha tihaama oo kala weynankeeda. dadkaasi waxay la imaanayaan acmaal waaweyn markaasaa ilaahay fayajcaluha allaahu habaa'an mansuura ilaahay baa acmaashaas baabi'inaaya wuxuu ka dhigayaa sidii boor hawada lagu fidhiyey oo kale. saxaabigii nabiga ka wariyey xadiidka sala allahu calayh wasalam waradia allahu can asaxaaba oo ahaa thawbaan mawla rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam ayaa yidhi yaa rasuula allah sifhum lana jallihim lana rasuul allow noo tilmaam si fiican noogu fayd anlaa nakuuna minhum wa naxnu laa nadri annagoon ogeyn si aanan uga mid noqon dadkaas sharka badan bal tilmaantooda masiir rasuulka allah sala allahu alay wasalam. markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam hum min jildatin idinka ayay maqaarkiinoo kaley leeyihin hum ikhwaanukum waa walaalihin oo waa muslimiin maqaarkiinoo kale iyo muuqaalkiinana waa leeyihiin waa idin egyihiin bal waxaa taas ka sii daran waya'khuduuna min alleyl kamaa ta'khuduun waa dad qiyaamu leylka u istaaga oo habeenkii tukada sida idinkuba u tukatiin. laakiin dadka noocaasa oo haddana acmaashooda ilaahay burburinaya maxay yihiin maalinta qiyaame? wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam walaakinahum aqwaamun idaa khalow bimaxaarimi illaahi intahakuuha waa dad markay cidlaystaan wixii ilaahay ka xarimay way dilaaciyaan oo way ku xadgudbaan. meesha laga qaniinay waa halkaas. sidii munaafiqiintii bay u dhaqmaayaan dadka muuqaalkooda wanaagsanay muujinayaan marka ay keligood noqdaanna ilaahay way halmaamayaan subxaana wa tacaala. waxaa laga yaabaa qofka mu'minka in la imtixaano oo macaasidii ay fududaato si fudud uu macaasida ula imaan karo ayadoo ilaahayna xikmad uu ka leeyahay in la imtixaano addoonkan bal inuu ilaahay iska ilaalinayo in kale. ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala layabluwannakum allah yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min asaydi tanaaluhu aydiikum wa rimaaxukum. mu'miniinow ilaahay waa idin imtixaanaya waa idin ibtilaynaya shay ka mida ugaarta oo gacantiinna aad ku soo qaada kartiin oo gacantiinnu ay gaarayso warmihiinnu ay gaarayaan. mujaahid wuxuu yidhi kuwa yaryarna gacantaa lagu qaban karaa iyadoo bir lala aadan kuwa waaweynna kaa didi maayaanoo warankaa gaara. aayaddaasi waxay soo degtay markii ay cumradii xudaybiya ay soo aadeen saxaabadu ayaa ugaartii meesha ay degaan ayaa ugaartii ay daaqayeen. ugaartii meel bidhaanta ka carari jirtay oo aan la gaari karin ayaa inta taagan
gacantaa gaarta warankaa gaara qofka muxrimka oo xaj xirtay ama cumro xirtayna looma ogola ugaar aan ahayn ugaarta badda inuu ugaarsado looma ogola waa lagu imtixaanaya bal sida ay yeelaan duruuf adagoo baahiyeedna way jirtaan la yabluwannakum allahu bishayin min as-saydi tanaaluhu aydiikum wa rimaaxukum xikmaduna waa maxay xikmadu waa maxay ilaahay si liyaclama allahu man yakhaafuhu bilghayb si ilaahay uu u ogaado oo u daahiriyo bannaanka u keeno man yakhaafuhu bilghayb qofka ilaahay ka cabsanaya isagu addoonku ilaahay uma jeedo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma aadan arag laakiin iimaanka qalbiga ku jira uga cabsanaysa dadka cabsida noocaasu ay ku jirto oo haddii ay dadka kale arki waayaan keligeed ay noqdaan ilaahay ka cabsaday iyo kuwa kale si loo kala ogaado saddex tusaale ayaan ku soo gabagabaynayaa tusaalaha koowaad wuxuu yahay yahuudda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka xarimay inay maalinta sabtiga ugaarsadaan maalinta sabtiga inay ugaarsadaan markaasay fiiriyaan ugaartii oo badda ay ka xamaashaan oy ka jillaabtaan maalinta sabtiga ugaartii badda waxay iska taagan tahay xeebta malaagiyaa dul sabaynaya maalmaha kalena lama arko badda gudaheedu ku fogaanaya xeeladay sameeyeen sidootoo ilaahay la siri karo shamaagtooday dhigteen maalinta sabtiga axaddana waa soo jillaabanaya ilaahay ciqaab degdeg uu ciqaabay waxaa loo bedelay daanyeero kunuu qiradatan khaasi'iin daanyeero duf ku baxay noqdaa layidhi waxay iska dhigeen dad iska ilaalinaya maxaarimta alle oo u eg addoommada ilaahay ka baqaya sabtigii farahay laabteen shamaagtiina way u taallaa waana ugaarsanayaan wixii ilaahay ka xarimay way ku dhaceen ilaahay muxuu ku ciqaabay wax dad u eg aan dadna ahayn in loo bedelay sidii ayaguba wax daacad u eg ay u sameeyeen aan daacadna ahayn ayaa waxaa lagu ciqaabay in daanyeer loo ekaysiiyo daanyeer dad ma ahan waana shabaha oo shabahu la leeyahay ciqaab degdeg ah ilaahay ciqaabay subxaanahu wa tacaala addoommada wan wanaagsan ilaahay nabiyullaahi yuusuf ayuu wuxuu noo sheegayaa in uu ku noolaa nin boqora gurigii uu ku noolee islaantii joogtay waxay noqotay qof aan cabsi badan oo ilaahay ku jirin subxaana wa tacaala markii dadkii ay kala tageen gurigii uu cidloobay faqallaqat alabwaaba wa qaalat hayta lak albaabaday xirtay alabwaab culummadu waxay yidhahdeen intay ku dhacayso ugu yari waa saddex waa albaabkii koogaaday xirtay kii labaaday xirtay kii saddexaaday xirtay waa meel qofku uu aamin ka yahay in cidi u soo gasho albaabada markay xirtay u yeertay hayta lak iskaana siiyatay markaas wuxuu yidhi macaad allah ilaahay baan ka magangelayaa xumaanta adigu yeerayso qofka noocaas yeelana ilaahay subxaana wa tacaala muxuu u ballan qaaday cizi adduun iyo aakhiro karaamadeed oo nabiyullaahi yuusuf ilaahay wuxuu ka dhigay subxaana wa tacaala melikii masar iyo ummadihii markaas uu ku dhex noolaa ayaa ilaahay gacanta u geliyey inuu maamulo oo adduunka ku ciseeyo ayagoo dadkii ilaahay caasinayo ag dhoobnaa indhahoodu shanta yihiin ay u jeedaan ilaahay adduunku ku karaameeyey aakhirana wuxuu leeyahy nabigu sala allahu calayh wasalam sabcatun yudilluhum allahu fii dillih yowma laa dilla ilaa dilluh toddoba addoommada ka mid ah ilaahay wuxuu hariyaa harkiisa maalin aan har kale jirin midka ilaahay maana subxaana wa tacaala carshiga allay harsadaan mar ummaddu dhiban yihiin yaa ka mid a wa rajulun dacatu imra'atun daatu mansibin wa jamaal nin ay u yeeratay haween mansib iyo xasab wanaagsan iyo qurux isku darsatay dabadeedna faaxisha igu yeeray iyo xumaan oo markaas yidhi innii akhaafu allah cid kale wax iska saaraya ma jiraan cid kale hadday joogto hebel aan arkaayo ehela laakiin wuxuu leeyay innii akhaafu allah ilaahay baan ka cabsanayaa oo aan laga dhuuma karin oo dembi lagala dhuuma karin qofkaasi abaalmarinta aakhiro loo diyaarshay ayaa nabigu leeyahy sala allahu alayh wasalam wuxuu ka mid yahay toddobadaas carshiga ilaahay harsanaysaa maalinta dhibka badan adduun iyo aakhiro karaamadooduu leeyahy waxaan rabaa maanta waxaa jira dunuubtii waa laysku imtixaanay waa soo dhowaatay
qof walbaaba telefoon weynaa jeebka ugu jira xumaanta faaxishada lagu sameeyo adduunka meesha ugu dambaysa iyo foolxumo kastoo adduunka ku taalla ayaa dhex taalla qofku ayadoon wax arkaya la arag labada dhagood buu wax gashanaya wuxuu dhageysanayaa waxaan ilaahay raalli ka ahayn qalbiga madoobaynaya ilaahay caradiisa uu ku qasbanayo wuxuu fiirsanayaa waxaan ilaahay raalli ka ahayn maxaarim fawaaxish wax daran ayuu fiirsanaya wuxuu isleeyahay cid kuu jeeda lama arko bustuhuu la hawanaya ma oga oo ma dareensana indhaha alla siiyey nicmada ay yihiin ma dareensana dad badan oo khayrka ku arki lahaa inay indhahooda aysa maanta indha lahayn oo waxa adduunka ugu jecel yahay inay waa aabahood iyo hooyadood aan arkaynin ehelkooda aan u jeedin bahalka ku soo socda aan u jeedin cunug yar oo indhala oo waddamada khaliijka ku nool qur'aankana xifdiyey oo yar ayaa su'aal la weydiiyey waxaa lagu yidhi haddii lagu yidhaahdo indhaha waa laguu soo celinayaa laakiin hal shay markaad ku aragto sidaadii horaad ku laabanaysaa halkaas mara maxaad ku fiiri lahayd indhahaaga markaasuu yidhi waxaan ku fiiri lahaa kalaamka rabbulciza waljalaal oo aan aqrinahayo weligayna aanan arkin waan aqriyaa waan xifdisanahay weligayna ma arkin qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala dadkaas ayaa badan laakiin adigu ma ogid ma garanaysid macnaha ay ku fadhiso indhaha aad ilaahay ku caasinaysid dhagaha aad qashinka ku dhagaysanaysid ilmaheennu waxay marada kula hoos jiraan waxaan ilaahay raalli ka ahayn mustaqbalkooda diinood burburinaya akhlaaqdooda u dhammaynaya bal dadkii waaweynadaas samaynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala lagama dhuumo karo aan iska ilaalinno waa adduun iyo aakhira la'aan waa mujaahara ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii cunug yar oo 5 jir kuu soo galo waa la sijeesanay ilaaha rabbulcaalamiin kana ka xishoomaysa marka aan qalbigeenna ilaalinno ilaahay subxaanahu wa tacaala muraaqabadiisana aan xusuusanno صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين